الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka waxa uu ku tilmaamay waxyaabo fara badan oo qisooyin horay u dhacay ah. qisooyinka kitaabka uu tilmaamay ama ilaahay qur'aanka uu noogu sheegay waa qisooyin aad iyo aad u cajaa'ib badan. ilaahay asagoo ka hadlaya qisooyinka waxa uu yidhi: laqad kaana fii qasasihim cibra. waxaa ku dhex sugan dadkii hore ama rusushii qisooyinkooda cibro iyo waana qaadasho weyn ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab. waxay ugu sugan tahay dadka ulul albaabka ah oo cuquusha iyo caqliga markaa u saaxiibka ah. qisooyinka kitaabka ku qoran buu yidhi ilaahay maa kaana xadiidan yuftaraa. ma ahan axaadiid iyo sheekooyin la been abuurtay oo markaa dadku ayagu jeebkooda ay ka keensadeen, walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday. laakiin waa tasdiiq iyo rumayn waxyaabihii dhacay oo horeeyey ilaah uu ku rumaynayo subxaanahu wa tacaala. waa hanuun iyo naxariis qoomka mu'miniinta u ah. ma jirto sheeko hanuun iyo naxariis mu'miniinta u noqon kartaa ilaa qisooyinka kitaabka ku qoran maahane. haddaba haddii ilaah yidhaahdo subxaanahu wa tacaala, galabta waxaan ka hadli doonaa qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon dhex martay. ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo kitaabkiisa ku tilmaamaya wuxuu yidhi, rasuulka ilaahayna la hadlaya arrintaana inay tahay arrin xaqa u sheegaya: natluu calayka min naba'i muusaa wa fircawna bilxaq. rasuulkii ilaahayow waa kugu kor aqrinaynaa oo dushaada waxaan ku sheegaynaa waxyaabihii iyo naba'ii iyo khabarkii dhex maray muuse iyo fircoon. sheekada aan kuu sheegaynaa waa xaq ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. dadka mu'miniinta ayayna markaa u tahay. nebi muuse qisadiisa waa qisada ugu dheer kitaabka qur'aanka marka la fiiriyo. waxaa ku jirta cibro aad iyo aad u adag, in diinka ilaahay lagu sabro, in daacada ilaahay la wado, in dacwada rabbi kor loo qaado, dhibaato walba oo kaa hor timaadana inaad ilaahay u kaalmaysato subxaanahu wa tacaala. waan arki doonaa qisada gudaheeda marka aan gaarno sida ay u hadli doonto iyo cibrada ku dhex sugan iyo sida loogu talagalay dadku inay ugu waana qaataan. haddaba ilaah markuu sheegay arrintaa wuxuu yidhi: inna fircawna calaa fi lard. ninka fircoon la yidhaahdo wuxuu ahaa ninku kor noqday oo isku kormarsiiyey arlada dhexdeeda. magaalada misr waa masare ayaa waxaa u telinayay boqor daalim ah oo magaciisa la yidhaahda fircoon. fircoonkaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu xadgudbay arlada gudaheeda, sida ilaahay tilmaamaya: inna fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyaca. ahalkii meesha deganaa ayuu qayba ka dhigay buu dhahay ila subxaanahu wa tacaala. asaga dadku u dhashay qibti ayuu ahaa fircoon. muusena waa reer bani israa'iil. sidaa ayuu u kala qaybiyo qoladii asaga uu ka dhashay ayuu kor u qaaday oo wuxuu ka dhigay dad magaalada ku tasarufa oo mutrafiin ku noqda oo wax allaala waxay rabaan ku sameeya. qoladii ka soo hartay reer bani israa'iila waa qoladii nebi muuse waxa uu sameeyey inuu hoos mariyo sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. wuxuu ka dhigay ehelkii meesha deganaa laba qayb: yastadcifu taa'ifatan minhum. wuxuu addoonsaday ou daciifsaday koox ayaga ka mid ah. muxuu samayn jiray? yudabbixu abnaa'ahum. wiilashooda ayuu qali jiray buu dhahay ila subxaanahu wa tacaala. gabdhahana waa ka sariigan jiray oo waa ka xishoonayey.
haddaba xaaladaa waxaa kaliftay boqorka daalimkaee magaalada u taliya ayaa waxaa la yidhi wuxuu ku riyooday dhibaato fara badan inay soo gaartay dadkii asaga markaa uu ka dhashay ama guryaalkoodii deganaa. weli waxaa la tilmaamaa iftiin ka soo baxay reer bani israa'iil oo deb oo kale ah oo reer qibdi markaa wada gubay oo dhibaato gaarsiiyey. intaa ka gadaal ayuu u sheegay nimankii suxarada ahaa ama sariyooyinka fasiri jira, waxayna ugu fasireen wiil ka dhalan doona reer bani israa'iil inuu sabab u noqon doono dilkiisii, dhibaatadiisa iyo burburka markaa soo gaara. waa marka uu fircoon amray in la qalo wiil walba oo ka dhasha reer bani israa'iil, gabdhahana markaa layska dhaafo. xaaladdu markay meeshaa maraysay ayaa waxaa dhashay nebi muuse calayhi salaam. nebi muuse markii uu dhashay oo ilaah subxaanahu wa tacaala ifka uu keenay, bannaankana uu u soo baxay, ayaa hooyadiis waxay u cabsatay cabsi aad iyo aad u weyn. sababtu waxay tahay waxay og tahay boqorka meesha u taliya inuu ku dhaartay ama uu sameeyo inuu gowracayo wiil walba oo markaa reer bani israa'iil ka dhasha. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu canugaa dhashay oo xaaladiisu ay sidaa noqotay, hooyadiis waxay noqotay mid aad iyo aad u cabsanaysa sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. wa asbaxa fu'aadu ummi muusaa faariqa. nebi muuse hooyadiis laabteeda waxa uu noqday mid faariq ah oo maran ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. weliba mar allaala markuu bannaanka u soo baxay oo jilbaha ay saaratay ayay aad iyo aad uga cabsatay. ilaahay ayaana u soo waxyooday oo markaa la hadlay. rabbi kitaabkiisa waxa uu ku yidhi waxaan u waxyoonay ilaa ummi muusa an ardiciih, muuse hooyadiis canugaaga nuujiso. sidaa ayaan ku niri buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ummi muusey canugaaga nuuji, ha cabsanin ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ummi muuse waxaan u waxyoonay inay canugeeda nuujiso, ilaan hooyo wax dhashay waaye. askartii fircoon ayaa wareegaya, waxay raadinayaan wiil dhashay, waxay rabaan inay gowracaan. nebi muuse ayaa dhashay, hooyadiis ayaa haysata. maca daalika mashaakil iyo murug iyo kurbo badan ayaa saaran ummi muusa. intaa ka gadaal ayaa waxaa ilaah uu u waxyooday inay iska nuujisato canugeeda. hadday u cabsato ay dhacda inay cabsata oo mashaakil iyo waxyaabo kale ay ka cabsatana, ilaah wuxuu ku yidhi waxaad isaga ridaa sanduuq soo qaad ee ku dhex rid canuga, waxaadna ku tuurtaa yamiga iyo baxarka, isaga tuur ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ummi muuse qalbigeedii waa siin waayey inay canuga gurigeeda ku sii haysato mashaakilka jira darteed. intaa ka bacdi ayaa waxay samaysay inay sanduuqii ku riday, ayay ku tuurtay webigii asagoo qaatay oo iska sii socdo ayaa waxaa gacanta ku dhigay fircoon iyo ahlkiisa sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. faltaqatahu aalu fircawn, sanduuqii wuxuu gacanta u galay fircoon ahlkiisa. meesha waxaan ka fahmaynaa xaalad aad iyo aad u cajiib badan inay tahay xukunka ilaahay. waad u jeedaa ninkii looga cabsi qabay, ninkii asaga dartiis loogu riday sanduuqa oo badda loogu soo riday, ayuu ilaahay gacanta u geliyey subxaanahu wa tacaala. awoodda ilaahay ayaana la baraa, awoodda ilaahay sida ay tahay ayaana la rabaa inaan nala tusaaleeyo. waayo qisooyinkanna loo sheegaya waa cibro, maahan qisooyinkii iyo sheeka xariirtii ilmaha lagu hurdisiin jiray, maaha haddii waxyaabaha dadka lagu maaweylin jiray, laakiin waa mid xaq ah oo dhab ah oo qofkii aamina jannada ilaah uu ku gelayo subxaanahu wa tacaala. ilaahay awooddiisa fiiri, ninkii looga cabsi qabay ayuu gacanta u geliyey ilaahay. waxaa qaatay aalu fircawn, sababta loogu talagalayna xasni iyo murugyo iyo tiiraayo inay ayaga naftooda u ahaato ayuu ilaah ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. sanduuqii oo la soo wado oo muuse ku jira ayaa la keenay fircoon hortiisa. markii meesha loo soo dhigay waxaa soo hadashay fircoon naagtiisa sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. wa qaalat imra'atu fircoon imra'adiisa waxay tiri, ilqawoobsi ayaa ii sugnaaday aniga iyo adiga ayay tiri. mar allaala markay aragtay canuga meesha ku jira, markuu ka soo baxay inuu wiil yahay, ayay tiri ilqawoobsigaygii oo ani iyo adi noo sugnaadayow, fircoonow ha dilin. waxaa laga yaabaa inuu wax noo anfaco ama aan walad ka dhigano ayagoon ogeyn buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba fircoon ilaahay gacanta ayuu u soo geliyey
gurigiisa ayuu joogaa, asagaana looga cabsi qabay inuu markaa dilo. waxaa taariikhda gobol ka mida ay tilmaantaa iyo siirooyinka iyo qisooyinka ka sheekaynaya nebiyaalka inuu yidhi waa imtixaama canugan. hadduu noqdo nin caaqil ah oo waxgarad ah waa dila, hadduu caaqil noqon waayena waa iska dayn doonaa. wuxuuna ku baroobeeyey ayaa la yidhi uu meesha u dhigay dab iyo timir. dabkii iyo timirtii ayuu meesha u dhigay. hadduu timirta qaato ayuu yidhi waa nin caaqil ah, waa nin dhibaato igu soo wada, waa nin mashaakil ii keeni doona, waana dili doonaa. laakiin hadduu dabka qaato wuxuu noqonaa qof aan dhaafi doono. waa la soo dhigay meeshii, wuxuu gacanta u taagtay ayaa la yidhi dabkii uu markaas soo qaatay ilaa afka uu la aaday. gadaal ayaan ka ogaan doonaa markuu rabbi baryi doono, ilaahayo waxaa igu sugnaatay gunud iyo cuqud carabkayga ahaatee iga fur. sidaa ayuu dhihi doonaa calayhi salaam. intaa ka gadaal ayaa layska dhaafay oo ilaah subxaanahu wa tacaala sabab uu uga dhigay in ninka noocaas ah uu ku koriyo rabaayadiisii gacantiisuu markaa ku jiro. waata ilaahay uu yidhi waxaan ku tuurnay dushaada maxabbo iyo kalgacayl in lagu jeclaado iyo walitusnaca calaa cayni, in lagu sanceeyo oo lagu koriyo oo lagu maamulo. ilaalintayda korkeeda ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay oo fircoon naagtiisii ay tidhi canugan waa noo ilqaboobsi ee fircoonow hanaga dilin, waxbuu noo anfici doonaa ama welad ayaan ka dhigan doonaa, ayaa meesha canugii lagu dhaafay oo wuxuu joogaa gurigii fircoon. wuxuu ku dhex sugan yahay ninkii amarka bixiyey in amarkiisa wiilasha lagu gowraco. amarka ilaahay inuu soconayaana la tusaa. intaa ka gadaal waa canug yariis ah oo radiic iyo nuugma ku jira. dhibaato fara badan ayaa ka soo gaartay dhanka baahida. waxaa loo raaraadiyey islaan wax nuujisa. ilaahayna wuxuu yidhi waxaan ka xaaraantinimaynay naag walba oo markaa wax nuujinaysa. naag walba oo loo keeno oo irmaan oo naaskeeda caana leh, mar allaala marka loo keeno waa ka jeestaa. canugii yaraa waa muuse. marka naag kale loo keeno waa ka jeesana. dhibaatada ayaa mataqaanaa ilaahay haddana naagihii uu kaga salliday xaggooda, ilaa markii dambe ummi muuse mar allaala markay maqashay in canugeedii fircoon gacanta uu ugu jiro, laabteeda uu noqday mid faariqa oo markaa maran. ileen waa beer wax dhalaye. ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi nebi muuse hooyadiis laabteeda waxa uu noqday faariq, mid maran. waxay sigtay xataa inay muujiso oo ay dhahdo alla canuga anaa dhalay ee hadilina, anaa dhalay ee iska dhaafa. sidaa ayay sigtay una dhowaatay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha, haddaanan qalbigeeda dabooli lahayn hadalkaas waa muujin lahayd. wuxuuna ilaahay sidaa u yeelay inay mu'miniinta ka mid noqoto. walaashiis ayay la hadashay oo ay tidhi baxraad raadiba canuga, xaaladiisa la soco, leannahu hooyadu aad u kurbaysan tahay. dhibaato iyo mashaakil iyo murug ayaa ka muuqda. canugii waxay u soo dirtay walaashii, way la socotay ilaa markii dambe loo soo tilmaamay ama ay ogaatay meesha canuga uu ku jiro iyo xaaladda uu maraayo, iyo in allaala intii naaga oo wax nuujiso loo keenay oo markaa uu wada diidan yahay. walaashii waxay tidhi ma idin tusiye ahlu bayd idinka kafaala qaada. islaan haddii loo keeno uu naaskeeda oggolaan doono ma idin keenaa oo ma idin tusiyaa? sidaa ayay markaa tiri idinkana kafaala qaada. haa ayay yidhaahdeen. markaasay hooyadiis u soo waday. naagtaan ka fiiriya kuna baroobeeya ayay tidhi. isla markii uu arkayna canugii hooyadiis waxa uu bilaabay inuu naaskeeda markaa jiqa ama uu nuugo. waa ilaahay nimcadiisa subxaanahu wa tacaala. hooyadii mar allaala markay meesha sidaa ugu nuujisay oo canugii sidaa naaskeedii ay u siisay ayaa waxay tidhi anigu waa iska baxaa, gurigayga ayaan aadaa. waxay ka codsadeen in meesha ay joogto oo canuga meesha ay ku nuujiso, laakiin way ka diiday oo waxay u tilmaantay gurigeeda inuu cidla ka yahay oo ay u baahan tahay inay gurigeeda joogto. hadday rabaan inay waddo oo gurigaa marka ay ku soo nuujiso, maca daalika ujro iyo mushaar ayaa lagu siinaayey. waa canugii ayada ay dhashay, naaskeedii ayay siinaysay. maca daalika ninkii awoodda sheeganayay ee rabay inuu dilo, ilaah wuxuu kalifay ama uu sababay inuu ujro ku siiyo muuse hooyadiis nuujinta ay canugeeda markaa nuujinayso. ilaahay amarkiisa haalib noqonaya mar walba subxaanahu wa tacaala, laakiin dadka badankooda ma oga.
dadka badankoodu sidaa uma aaminsana. dadka badankooda ilaahay xaggiisa iimaan yaqiina oo dhaba kama qabaan. waad u jeedaa ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey in canugeedii loo soo celiyey naaskeeda siisato, maca daalika ujara iyo lacagna ay ku qaadato. rumayntii rabbi ay rumaysay dartee canugii ay dhashay sanduuqay isaga riday, ay baxarka ku riday dartii, iyo ilaahay amarkiisa rumayntay rumaynaysay subxaanahu wa tacaala. intaa ka gadaal marka xaaladdu meesha ay maraysay ayaa ummi muuse waxay aad iyo aad isaga nuujinaysay canugeeda. canugii ayay sidaa u nuujisay. ilaah subxaanahu wa tacaalana markii dambe canuga wuxuu ka dhigay canug barbaaray oo ku barbaaray cinaayo ilaah subxaanahu wa tacaala iyo barbaarin wanaagsan. waxa uuna ku koray gurigii fircoon. intaa ka gadaal bacdamaa canugii uu weynaaday wuxuu bilaabay inuu bannaanka u baxaayo oo markaa mararka gobol ka mida safaro gaagaaban uu galo uu ka soo noqdo. xaaladda ayuu bilaabay sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. walamaa balaga ashuddahu, mar allaala markuu adeegiisii gaaray oo wastawaa uu ekaaday oo rijaalnimadii iyo raganimadii uu ku sugnaaday, waxaan siinay buu dhahay ilaahay xukun iyo cilmi. dadka muxsiniintana sidaa ayaan u abaalmarinaa. qof walba oo muxsin noqda oo kitaabka ilaahay qisooyinka ku jira u arka qisooyin dhab ah oo diin ah raaca oo ku dhaqma oo ku camal fala, ilaahay ugu dhowaada, sidaa ayaan u abaalmarinaa ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. maalin maalmaha ka mida wadakhala almadiinata calaa xiini gaflatin min ahliha, wuxuu soo galay nebi muuse magaaladii wakhti ay dadkooda kafle ku jiraan. kaflada waxaa dhici karta in loola jeeda wakhtiga hergelmada oo dadku ay wada hurdaayaan, oo wakhti duhurnimo ay tahay oo dadku intay qadeeyeen qoylaysi lagu jiro oo dadku ay hergelayaan, oo wakhtigii hurdada oo galabnimada duhurnimada ay ku jiraan ayuu magaaladii soo galay muuse calayhi salaam. wadakhala almadiinata calaa xiini gaflatin min ahliha. intaa ka bacdi wuxuu ka helay buu dhahay ilaahay rajulayn, waa laba nin oo yaqtatilaan dagaalamaaya. midkaani shiicadiisa ayuu ahaa oo waa qoladii reer bani israa'iil oo waa dadkii muuse. midkaana cadowgiisa ayuu ka mid ahaa waa fircoon dadkiisa. saan soo tilmaamay dadkaa fircoon ka dhashay xaggooda waxay ahaayeen dad dulmi iyo edabdarro iyo gardarsi ku socda. waxay isku halaynayeen xukunka iyo madaxtinimada gacanta ayagu markaa uu ugu jira iyo dadkooda. sidaa darteed ayaa in badan aad arkaysaa, adduunkana aad ka arkaysaa dadka ru'asada ah ama madaxtinimada haysta ama ayaga ugu sarreeya waddanka, dadkoodu inay yihiin dadka mutrafiinta ah ee la amro inay ayagu arlada fasahaadiyaan oo ay haleeyaan ayagoo isku halaynaya awood iyo quwad iyo waxyaabo kaloo markaa gadaal ay ku og yihiin. maca daalika nebi muuse wuxuu u soo galay magaalada. labadaa nin ayuu arkay oo dagaalamaya. ninkaana shiicadiisa uu ka mid yahay, midkaana cadowgiisa. waxaa gargaar weydiistay ninkii asaga dadkiisa ahaa oo yidhi muusow ninkaan iga dhici, muusow ninkaan iiga kaalmeey, muusow ninkaan iiga gargaar. sidaa ayuu yidhi, wuxuuna uga gargaar weydiistay kii cadowgiisa ahaa. nebi muuse calayhi salaam dulmiga aad ayuu u necbanaa. dulmigu ma jeclayn. waa ogaa dadkan haba ku dhex koree inay yihiin dad dulmi iyo gardarro iyo edibdarro ku dhex socda. maca daalika nebi muuse wuxuu hal feer ku dhuftay ninkii cadowgiisa ahaa oo ninkaa dulminayey. ninkiina waa dhintay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ninkaa dilka uu sidaa u dilay halkaa feer ujeeddadiisa ma ahayn muuse inuu nafta ka qaado, mana ahayn inuu dilo ujeeddada uu watay, laakiin wuxuu rabay inuu dulmiga ka celiyo. naf oo la gooyaa dhibaato badan, naf la gooyo waa shay aad iyo aad u adag. waayo nebi muuse wuxuu yidhi haadaa min camali shaytaan, midaan waa shaytaan camalkiisa. asagoon ujeeddadiisa ahayn xayaatada ka qaad ee ninkan dil ama waxyaabo noocaasii dhibaato weyn gaarsii, laakiin sababtiisu ay ahayd inuu dulmiga ka celiyo. haddana qadihii qadarkii ilaah ku yimid oo ninkan uu sidaa ku dhintay ayuu nebi muuse yidhi haadaa min camali shaytaan, arrintan waa shaytaan camalkiisa. innahu caduwun, shaydaanku waa cadow wax dhumiya, dhumitaankiisuna markaa uu cad yahay. nebi muuse sidaa ayuu yidhi calayhi salaam.
intaa ka gadaal istikfaar ayuu ilaahay weydiistay subxaanahu wa tacaala. in xaaladaa laga cafiyey ayuu ilaahay ka baryey. istikfaar iyo toobo ayuu u degdegay bacdamaa maanta dilka dadka uu nala sahlan yahay oo nala yahay shay aad iyo aad u khafiif ah oo agteenna qiimo iyo waxyaabo aan ka lahayn oo lagu tartamo oo lagu faantamo oo xataa qofka uu ku faantamaayo inta qofood uu dilay iyo inta kale. waad u jeedaa nebi muuse calayhi salaam halkaa nin uu isdhahay dulmiga ka celi oo qadihii ilaah ku yimid subxaanahu wa tacaala ayuu istikfaar ilaah ka dalbay oo rabbi uu ka weydiistay subxaanahu wa tacaala oo yidhi ilaahayow nimcada aad iigu nimcaysay falan akoona dahiiran lilmujrimiin, ma ahaanay mid mujrimiinta taageera oo garab siiya. ilaahayow icafi. rabbina waa iska cafiyey waayo ilaahay waa ghafuuru raxiim subxaanahu wa tacaala. intaa wixii ka dambaysa waxaa la ogaan waayey ama suuqa ku faafay ninkaa dadka sharafta leh ka dhashay ee madaxda dadkoodii ka dhashay oo markaa la dilay, laakiin aan la ogeyn qofkii dilay. askar ayaa lagu soo diray magaalada. waxaa la sameeyey taftiish iyo baaritaan. waxaa la sameeyey in aad iyo aad loo howlgeliyey dadkii ayagu askarta ahaa si ay u soo qabtaan ama ay u ogaadaan ninkii dilay iyo waxyaabihii markaa lagu samayn lahaa. fircoon iyo dadkiisii baarlamaanka ayay fadhiisteen. shir ayay sameeyeen oo shir ayaa la qabsaday. shirkaa la qabsaday waxaa go'aan lagu gaaray in ninkaa haddii la ogaado oo la soo qabto markaa dil toogashaa lagu xukumo. nebi muusena dil ayuu ku xukunnaa. maca daalika lama ogeyn qofka markaa dilay. ayadoo xaaladdu sidaa ay tahay ayaa nebi muuse calayhi salaam waxaa u yimid nin mu'min ahaa oo iimaankiisii qarsanayey oo ku dhex jiray ru'asada dhexdooda. waa u yimid markaasuu uri yaa muusa ina almala'a ya'tamiruuna bika. muuse madaxdii iyo qayaartii way kuu tashanayaan, waxayna rabaan inay ku dilaan ee magaalada isaga bax. warniyow iska bax ayuu yidhi. intaa ka gadaal ayaa nebi muuse calayhi salaam asagoo magaaladii sidaa ugu socda oo dhuudhuumanaya ayaa wuxuu arkay ninkii shalay haddana uu u gargaaray oo ninkii markaa uu ka celiyey oo haddana nin kale ay ishaystaan ayuu markaa arkay. markaa ayuu haddana soo qayliyey oo yidhi muuse iga celi ninkan haddana. nebi muuse aad iyo aad ayuu ula yaabay ninkaa maalin walba qof isku taagaya. maca daalika intuusan ka qabanin ka hor ayuu canaan yar u soo jeediyey oo yidhi maxaa dhacay adiga? mar walba dagaal maad ku jiraysaa, mar walba dadka maad isku taagaysaa. warniyow maad noqotid qof deggan oo magaalada degganaan ugu noolaatid. adiga qawi mubiina ayaa tahay. canaantaa loo soo jeediyey ka hor intuusan ninkaa qabanin ayaa markaa ka gadaal muuse wuxuu sigay ama uu rabay inuu qabta kii labadoodaba cadowga u ahaa. canaantii yaraa ee la canaantay ayuu u malaynayay asaga haddana in dhibaato la gaarsiinayo. wuxuuna u socday nebi muuse ninkii kale. markaasaa ninkii shalay uu u gargaaray wuxuu yidhi muusow ma waxaad doonaysaa inaad i disho kamaa qatalta saad u dishay naf shalay oo kale? ma rabtid inaad noqoto mid arlada wanaajiya, waxaad rabtaa mutakabiriinta iyo kuwa arlada fasahaadinaya inaad ka mid noqoto. sidaa ayuu u kashifay, loona ogaaday qofka wax dilay, xaqiiq ahaanna loo helay inuu muuse yahay calayhi salaam. intaa ka gadaal arrintii ayaa caddaatay. muuse ayaa waxuu ku caddaaday inuu ninkii markaa dilo. ileen doqonkan ayaa kashifay. doqonkan ayaa bannaanka soo dhigay oo caddeeyey. sidaa darteed ayay soomaalidu waxay ku mahmaahaan duyuus looma gargaaro ama doqon gacan lama siiyo. sidaa darteed ayaa ilaah subxaanahu wa tacaala mar walba xukunkiisa ayuu ku hoos jiray iyo kaalmayntiisa iyo barbaarintiise. intaa wixii ka dambaysa ayaa waxaa go'aan lagu gaaray muuse bacdamaa uu yahay ninka wax dilay. xaaladana sidaa loo ogaaday in la soo qabto oo markaa la dilo. muusena waa loo yimid oo nin ordaaya ayaa u yimid. markaasuu dhahay muusow isaga bax magaaladan ka tag, waayo waxaad dhici doonta in lagu dilo, mashaakil dhibaato fara badan lagu gaarsiiye, iska bax. nebi muuse calayhi salaam wuxuu ahaa mid magaalada ku sugan khaa'ifan yataraqab, asagoo cabsanayo dhuudhuumanayo sugaya wixii markaa soo gaari lahaa. intaa ka gadaal ayuu yidhi ilaahayow qoomka dhaalimiinta iiga kaalmeey, ilaahayow waxaad igu hanuunisaa jid toosan. intaa ka gadaal waa soo baxay, wuxuuna soo aaday dhanka madyan calayhi salaam. nebi muuse dhanka madyan ayuu soo aaday. markuu u soo jihaystay tilqaa'a madyan dhankeeda wuxuu yidhi ilaah wuxuu mudan yahay inuu igu hanuuniyo sawaa'a asabiil, jidka midkiisa toosan.
markuu soo socday nebi muuse calayhi salaam uu soo gaaray biyo aroorkii iyo meelaha biyaha ay ka dhaansadaan xoolahooda ayagu dadkuna ay ka waraabaan, markuu meesha soo gaaray nebi muuse ayaa wuxuu ku arkay 2 gabdhood ayaa la yidhi oo meel gees ah joogo arigooda ku ceeshanaya. dadkii rijaasha ahaana ay waraabsanayaan oo ceelkii korkiisa ay saaran yihiin, ay ku dhooban yihiin, sukadoodana 2 gabdhood daduudaan ay yihiin oo arigooda ay ku celceshanayaan meelihii ay joogeen. nebi muuse waa u tegay calayhi salaam. 2 gabdhood wuxuu ku yidhi maxay xaaladiinu tahay? markaasay dheen annagu waraabsan mayno ilaa rucaadan iyo nimankan arijirayaasha ah ama xoolaha watee wax waraabsanaya ay ka fulaan, meeshana ay ka tagaan. wa abuunaa shaykhun kabiir, aabbaheennana waa oday duq ah. sidaa ay markaa gabdhihii dhaheen. nebi muuse calayhi salaam waa u soo qaaday waana u waraabiyey. mar allaala markuu u waraabiyey oo biyihii u siiyey, xoolihiina uu u waraabiyey, wax dhibaataa ma gaarsiinin. gabdhihii hadal xumaa kuma samaynin, waxyaabo mashaakil ah ma gaarsiin, sida dhallinyarada qayb ka mida maanta ay sameeyaan. qisada fiiri wanaageeda iyo cibradana loogu talagalay inaan ku qaadano. shabaabka maanta jooga hal gabar ama hal naag oo magaalada maraysa hadday asxaan yar u sameeyaan, ama dembiil ay qaadi weysay ay u qaadaan, ama biyo ay wadatay qaadi weysay ay u qaadaanay meel u geeyaan, ma dhici karta inay si sama ah oo salaamaha uga soo noqdaan ilaa inay ogaadaan heerkay ku sugan tahay, sida xaaladeedu ay tahay, inay u yimaadaan, inay soo raajiciyaan marar kale, inay ku sameeyaan xaalo aad iyo aad u khatiiro dhibaato badan, heerka ayay gaarsiinayaan. maca daalika nebi muuse fiiri calayhi salaam fasaqaa lahumaa, waa u waraabiyey, uma tawallaa ila adil, intaa ka bacdi geed hoostiisa ayuu iska yimid calayhi salaam. waa baahan yahay, waa ooman yahay, mashaakil ayaa haysta, qarash ma wato, lacag ma haysto. wuxuu ka soo baxay magaaladii uu markaa ku dhashay, wuxuu socdaa meel duur ah. maca daalika dhibaatadaa faraha badan ayadoo ay hayso, gabdhihii ma hunguriyeynin, waxyaabo kale kuma samaynin, waxyaabo kale ma ku sii aadinin, xaggooda wax xumaana uma samayn calayhi salaam. intaasoo dhan waa inaan ku dayano, ilan cibrada noogu sugan ayaa xaaladaa ah. qisooyinkana loo sheegaya inaan fahamno ayaa sidaa loola jeedaa. shabaabow ilaahiina ka cabsada, war kudayda rususha, kudayda ambiyaalka, waxaad ku daydaan dadkii saalixiinta wanaagsanaa, ilan waxaa noogu sugan uswo iyo kudayasho wanaagsane. intaa ka gadaal fiiri waa baahan yahaye, wuxuu iska yimid geed hoostiisa, ilaahay ayuu gacmaha u taagtay, wuxuu dhahay rabbiyow wax allaala waxaad ii soo dejiso oo khayr ah, faqiir ayaanu ahay waana u baahanahay. ilaahayow waxaad ii soo dejisood khayr ah, faqiiraan u ahay waa u baahanahay. sidaa ayuu yidhi calayhi salaam. geed hoostiisuu iska fadhiyaa, ilaahay ayuu sugaa subxaanahu wa tacaala. cidlo iyo meel dhibaato ah waaye, ilaahay ma mooga, laakiin subxaanahu wa tacaala gabdhihii dhaqso ayay guryahoodii ku tageen. caadadoodu sidaa ma ahaan jirin, aabbahood ayay u noqdeen. mar allaala markay aadeen oo waqtigii caadada u ahaan jirtay inay tagaan ka hor ay tageen, ayuu odaygii aad ula yaabay. wuxuu yidhi say xaaladiinu tahay? war maxaa dhacay maanta oo soo cusboonaaday? waxyaabaha dhacay maanta maxay tahay? nin baraka leh oo khayr leh oo wanaag leh ayaa ilaahay noo soo diray dhaheen. asagaa noo waraabiyey, nin xoog leh oo qawiya ayuu ahaa. maca daalika 2 gabdhood mid ka mida ayaa loo soo diray. u soo wac ayaa la yidhi. waxaa u timid nebi muuse, ixdaahumaa tamshi cala istixyaa, 2 gabdhood mid ka mida ayadoo soconaysa istaxyi iyo sariig iyo xishood korkeed, ayuu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. sida loo ammaanayo ma ujeedaa gabdhaha? weli waxaa la sheegaa ama la tilmaamaa inuu ninkaa dhalay Shucayb ahaa. hore ayaa sidaa tiri. say xaaladu noqotaba ninkaa saalixee wanaagsan ayaa dhalay. gabdhihii mid ka mida ayaa loo soo diray. waxay ku soconaysay sariig iyo xishood. gabdhaha muslimaadkaee maanta joogow, aaway xishoodka? war aaway xishoodkaad uga dayan lahaydeen gabdhaha saalixaadkaee ilaahay wanaajiyey subxaanahu wa tacaala? maxaa maanta sariigta idinka qaaday? maxaa maanta xishoodka idinka baabi'iyey? maxaa idinka dhigay kuwa aan sariiganaynin? war qoom way halaagsamaan marka xishoodka laga qaado. xishoodku aad iyo aad ayuu u qiimo badan yahay, sharaf iyo wuxuu leeyahay wanaag gooni ah. war ma jiro shay ka qiimo iyo wanaag badan. xishoodku shay ma dhex ahaado ilaa waa qurxiya, shay ma dhex ahaa lagama waayo ilaa waa haleeya, sida nebiga tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. gabdhaha mu'minaadka waxaan ku
ku waaninaynaa inay qisada ku cibro qaataan, inay kaga daydaan gabdhahan wan wanaagsan sariigta iyo xishoodka. markay bannaanka baxayaan inay bannaanka u baxaan ayagoo xijaaban, inaan la arkin jasadkooda qayb ka mid ah. markay bannaanka aadayaan si xishood leh oo wanaagsan oo deganaansho leh inay u socdaan. catar iyo barfuun inaysan marsan markay bannaanka aadayaan. qayladooda inaysan aad iyo aad u dheeraynin iyo hadaladooda. laakiin asaf iyo nasiib xumo bannaanka ayay u baxaan ayagoo golon bannaan. bannaanka ayay ku soo baxaan ayagoo sariig iyo istaxi iyo xishood aan lahayn. bannaankay u soo baxaan ayagoo carabkoodu dheer yahay. bannaankay u soo baxaan ayagoo qosolkooda meel walba laga maqlaayo. xaaladdu sidaa ma aha. war ilaahiina ka cabsada, war daacada ilaah ku dadaala. rasuulku wuxuu yidhi iimaanku waa 270 ama 260 qaybood. waxaa u fadli badan qowlka laa ilaaha ila allah. waxaa ugu hooseeya wadada oo laga qaada dhibkii waxyaabaha dadka dhibaaya. taasaa ugu hoosaysa. sariigtuna waa qayb iimaanka ka mid ah. xishoodku qayb iimaanka ka mida waaye ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. laakiin sariig malahan maanta dumarkii maanta jooga. xishoodkii ayaa laga la'yahay. ilaahiina ka cabsada ayaa laga la'yahay. fiiri sida ilaah u ammaanaya subxaanahu wa tacaala. fajaa'athu ixdaahumaa, nebi muuse waxaa u timid labadii gabdhood mid ka mid ah tamshii cala istixyaa, ayadoo soconaysa oo xishood korkiisa ku soconaysa, sariiganaysa, aad iyo aad u xijaaban. markay soconaysa hoos fiirinaysa, aan jidka ku heesaynin, aan jidka waxyaabo kale ku samaynayn, aan ragga aflagaadaynayn, aan ragga gacan u taagayn ayay ku socotay buu leeyahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaan waxaasoo dhan xishoodkay soo hoosgalayaane, xishoodkay soo hoosgalaan. dumarka maantu kama sariigtaan waxyaabaha xaqdarada ah ee ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. waxay nifaaska iyo janaabada qobayskeeda iyo waxyaabaha lamidka ah. waxaas ma hadda weydiin karaa ayaa laga yaabaa inay dhahdo. kama xishoonaysa nin ajnabiya inay gacanteeda ku salaanto. ma ka xishoonaysa inay bannaanka u soo baxdo ayadoon xijaabnayn. ma ka xishoonaysa cajalooyin fisqi iyo heese ah inay soo qaadato, weliba gacanta ayadoo ku wadata magaalada la soo marto. arrinta noocaasa xishood ayay la tahay. nebigaa naag u timid sala allahu calayhi wasalam, faadima binti abi xubaysh la yidhaahdo. waxay dhahday rasuulka ilaahay dhiig ah iga socdee see yeela. rasuulku wuxuu yidhi ogow faadimay, dhiigga xaydku waa dhiig madow. madowgaasaa lagu yaqaanaa. dhiigga kaa socda noociisa hadduu madow yahay, salaada iyo soonka ka istaag oo ha dukanin, hana soomin. haddii dhiig nooc kale kaa yimaadana tahaaro iyo qubays la imow, salaada iyo soonkana wanaaji oo la imow ayuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam. ma u jeedaa waxay weydiinaysa rasuulka? ma u jeedaa faa'iidada ay heshay iyo waxyaabaha ay faa'iiday? maanta maxaad ka sariigatiin idinka? maxaanada ka sariiganin? waa shay aad aad u dhibaato badan. haddaba gabdhaha mid ka mida ayaa u timid tamshii cala istixyaa, ayadoo soconaysa xishood iyo sariig gorkeed ayuu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. maxay ku tiri ina abii yadacuuk, aabbaheeyaa kuu wacaaya. wuxuu rabaa inuu kaa jaasiyo uuna kaa abaalmariyo wanaaggii aad noo qabatay iyo waxaad noo waraabisay ajirkeeda. mar allaala markuu u yimid waqasa calayhi alqasas, muusena uu uga sheekeeyey qisooyinka iyo sida xaaladdu ay tahay, sababta ka soo bixisay misir ama masar ee keentay magaaladan inay sida waxa ay tahay iyo dhibka xaaladda meesha uu ka taagan yahay. xaaladdaa mar allaala markii looga sheekeeyey, odaygii wuxuu yidhi laa taqaf, ha cabsanin, najawta min alqawmi aldaalimiin, waad ka soo badbaaday, waadna ka soo kortay qoomkii dhaalimiinta ahaa, qoomkii dulmiga badnaa. allah kaa soo bixiyey, ma imaan karaan magaalada aniga aan joogo, waayo markaa wuxuu awooddiisu ay ku ekeed waddankaa iyo magaalada markaa isagu u talinayey. laakiin banaanyaha fircoon ma awoodi karin inuu dhibaato kale markaa gaarsiiyo. ha cabsanin ayuu yidhi, waad ka soo badbaaday qoomkii dhaalimiinta ahee. xaaladdu markay meeshaa marayso ayaa labadii gabdhood mid ka mida soo hadashay. waxay tiri aabbow ninkaan noo ijaar oo noo kiray. ina khayra man ista'jarta, wax la kiraysto oo la ijaarto waxaa u khayr badan midka qawiga ah ee amiinka ah. ninka xoogga leh haddana aaminka ah waa laba tilmaan ama laba sifo oo ragga haddii ay ku sifoowaan rag gabdhuhu ay aad iyo aad ugu jecel yihiin. naagaha waxyaabaha ay ku jecelyihiin waa amaanada, waa qawiga. qofku markuu diintiisa xoog u leeyahay uuna ku adag yahay, uu aad iyo aad ugu adag yahay diinkiisa,
adduunkiisa markuu u shaqaysanaya qawi xoog leh uu markaa yahay, maca daalika haddana aamin yahay. naagtaa uu guursaday uu aaminnimo iyo amaano ku haynaayo, uu og yahay amaanada inuu gudanaayo, xoolaha loo dhiibtay amaanadeeda inuu gudanaayo, nin aamin ah inuu yahay. labada xaalad ayay ku tilmaantay, ayna markaa ku sifaysay. weliba waa la tilmaamaa oo taariikhda waxay ku dartaa inuu odayga aad ula yaabay arrintaa, ee uu yidhi seed ku ogaatay labadaa xaalad ninkaa inuu ku sugan yahay, inuu qawina yahay iyo inuu aamin yahay. maxaa ku dareensiiyey, maxaa ku ogeysiiyey? kiis noocaasi ayaa loo qabsaday gabadhii. intaa ka bacdi way ka baxday kiiskii, waxay u tilmaantay awooddii weyneyd ee ilaah siiyey subxaanahu wa tacaala, ee sida dhaqsiinta badneed inuu ceelka galay uu uga soo waraabiyey, iyo aaminnimada uu qabay oo mar allaala markii ay doontay ayadaa horay socotay ayaa la yidhi. intaa ka gadaal markay dabeel timaaday marada kor uga qaadaysay, muuse wuxuu yidhi gadaal soo mar, anaa horay maraaya. wuxuu rabaa inuusan arkin, inuusan cawradeedii waxyaabaha dabaysha markay ka qaadaysa uusan arkin. waa nin aamin ah, ilaahay ayaa ku karaamaystay subxaanahu wa tacaala. sidaa ayaan ku ogaaday ayay tiri. haddaba maxaa abaalgud looga dhigay calayhi salaam? nebi muuse maxaa loogu abaalguday? odaygii wuxuu ahaa oday caaqil ah. wuxuu yidhi innii uriidu, anigu waxaan rabaa an unkixaka, inaan kugu nikaaxiyo ixdabnataya haatayn, labadeedaan gabdhood mid ka mid ah ayaan rabaa ayuu yidhi odaygii. labadeedaan gabdhood mid ka mida ayaan kuu guurinaa, labadan gabdhood mid ka mida ayaan kugu abaalmariyey, laakiin bishardi waa inaad ii shaqaysaa 8 xijaj, waa 8 sano. fa in atmamta 10, haddaad ii taam yeesho ood ii dhammaystirto oo 10ka aad ii buuxisana agtaada ayay ahaatay, waayo ani ma rabi inaan ku dhibo. waadna i heli doontaa haddii ilaah yidhaahda min alsaalixiin, kuwa fiican inaan ka mid ahay. labadaa gabdhood mid ka mida ayaan kuu guurinaa. qisooyinka gobol ayaa tilmaama labadaa gabdhood oo loo guuriyey tii yareed inay tahay. gabadha weyn oo joogto tayar lama bixinayo, qole ayba aaminsan, waa shay aan waxba ka jirin. sidaa darteed qof walbaa wakhtigii ilaah wax u calfo oo alla uu ugu daro oo ugu talagalo ayay imaanaysaa guurkeeda. waxaa laga yaabaa gabdha yar yara oo jooga in loo xayiro, tii weyneed oon bixin la guursan maayo. xaaladdu sidaa ma aha, li'annahu qisada waa inaan aad iyo aad u ogaanaa, cibro inay markaa ku sugan tahay. tii yareed ayaa laga yaabaa 3 mar iyo 4 mar iyo 10 mar in lasoo doontay oo la leeyahay maya, tii weyneed ayaa weli dhiman, tii weyn ayaa oon la bixin, laga bixin maayo meesha. xaalad noocaas oo kaliya maahmaahyo in laguu soo qaatoo lagu yidhaahdo cajeerada sida u kala koraysaa loo qaataa iyo waxyaaba mataqaanaa sal aan markaa lahayn. marka labadaa xaalad ayuu tilmaamay ilaah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisana uu noogu tilmaamayaa qisadaa in nebi muuse odaygii gabdhaha dhalay uu yidhi waxaan rabaa inaan kuu guuriyo ixdabnataya haatayn, labadeedaan gabdhood mid ka mida, calaa an ta'juraniya 8 xijaj, waa inaad 8 sano ii shaqaysaa, haddaad 10 iiga dhigtana agtaaday ahaatay. anigu ma rabi inaan ku dhibo, satajidunii in shaa allah, haddii ilaah yidhaahda waad i heli doontaa inaan kuwa saalixiinta ka mid ahay. nebi muuse calayhi salaam waa ogolaaday, wuxuuna yidhi labada aalad mid allaala midii aan guto wax dhibaatoo korkayga ay ku tahay markaa ma jirto. wallaahu calaa maa naquulu wakiil, ilaahayna wax allaala waxaan ku hadlaynaa wakiil ayuu ka yahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wax allaala waxaan sheegaynaa wakiil ayuu ka yahay. odaygii oo sidaa ayaa shaqadii gabdhaha looga kafaalay oo nebi muuse calayhi salaam uu u noqday. meesha maxaan ka faa'iidnay oo kale? qisado inaan iska dhegaysanon iska wadno meehe, mar walba waa inaan ogaano nuxurkii waxyaabaha ay leedahay, waa inaan ogaano cibrada cajiibka badan ee ku jira. nebi muuse waa qawsaar, ma ujeedaa? wuxuu daajinaa ari. nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi nebi ma jiro ayuu yidhi ilaa wuxuu ahaa qawsaar. ari ayuu soo daajiyey, eri ayuu soo raacay. rasuulkaa la su'aalay, adigana ka waran? xataa aniga buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. nimankii reer maka ayaan qaraatiin iyo sunuud yar ugu raaci jiray, ama buuraha maka korkoodaan ugu raaci jiray. waxoogaa qataatiica inay isiiyaan ayaan arigooda u ilaalin jiray. waa ambiyaale, maxaa ariga loo raacsiiyey? raacsiintaa eriga la raacsiiyey waxaa ku jirta xikmad aad iyo aad u cajaa'ib badan, leanna xoolaha la dhaqdaa waa geel ama waa lo ama waa ari, waxaa uga dhib badan ilaalintiisa waa ariga. sidaa darteed ayaa bani aadamka iyo ariga laysku miitaalaa. siday u dhib badan yihiin ariga ayuu bani aadamkana u dhib badan yahay. ninkaa waxaa la rabaa risaalo in loo dhiibo
qoomkaa inuu ka bixiyo mugdiga iyo jahliga iyo shirkiga ay ku jiraan, inuu u bixiyo nuurka iyo tawxiidka iyo hidaayada. wuxuu kala kulmi doonaa mid aflagaado badan, wuxuu kala kulmi doonaa mid dadka soo dhoweeya, wuxuu kala kulmi doonaa mid dil ugu hanjaba, wuxuu la kulmi doonaa nin cay ku soo qaabila, wuxuu la kulmi doonaa nin aan diinkoo dhanba maqli karin rabinna, wuxuu la kulmi doonaa asnaaf fara badan iyo sifooyin aad iyo aad u kala duwan. maca daalika ayaa ariga xaaladiisu ay sidaa tahay, sida nebiga tilmaamay sala allahu calayhi wasalam markuu ka hadlaya xalaasha iyo xaaraanta. wuxuu yidhi xalaashu way caddahay, xaaraantuna way caddahay, labadoodana umuur ayaa dhex ah oo mutashaabihaad ah. dadka badankooda ma yaqaanaan ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. qof walba oo iska ilaaliya shayga mushtabihaadka la yidhaahdo oo xalaasha iyo xaaraanta baynkooda ahaaday, wuxuu beri yeelay uu ilaaliyey diinkiisa iyo sharaftiisa. qof walba oo ku dhaca shaabihaadka iyo waxyaabaha mutashaabiha ah ee yidhaahda shaygaa noocan leewaaye, waa shay iska karaahiye ah, shaygaa shay xaaraama ma gaarsiisna, xaalad noocan ah leewaaye, uu saas u daciifsado oo arrintaasaa u yaraysto shayga mutashaabihaadkaa dhex galo, ninka noocaasa waxaa degdegaysa ayuu yidhi nebiga inuu marka dambe xaaraanta ku dhaco. tusaale ayuu nebigu bixiyey sidii qawsaarkii arijirihii oo kale, arigiisa ku daajinaya meel la ootay oo xero ah gaarkeeda oo kale, suu uga celinaayo, maalinta dambe xagga uga celinaayo, maalin kastuu dhinac uga celinaayo, waxaad degdegaysa inuu dhex daaqow dhex galabuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. xadiiska wuxuu ku tilmaamaya ariga dhibka markaa uu leeyahay iyo celcelintiisa inay dhibaato adag tahay. idan ambiyaalku waa kurood la geliyey, waa tababar alla subxaanahu watacaala uu ugu talagalay. idan askarta waad ujeedaa, macalimiinta waxyaabaha kale barnaamijyo ayaa loo furaa, meelo ayaa la geeyaa tababara ah oo markaa lagu tababaraayo. sidaa darteed waxaa la rabaa markay banaanka soo baxaan hawlihii inay gutaan oo markaa lagu soo tababaray. hadduu askari ahaana askarnimadii uu ka soo baxo, haddii macalinimo loogu talagalay dadka suu wax u bari lahaa iyo suu markaa ku qaabili lahaa iyo suu markaa ku soo jiidan lahaa. marka ambiyaalka waxaa loo raacsiiyey ariga wuxuu yahay dhibaatada ninkii hadday u sabraan ooy u adkaysteen oo ari ay raaceen oo takaaliiftaaba ay gutaan, haddii ilaah yidhaahdo waa u sahlanaan doontaa bani aadamku inay risaalada gaarsiiyaan. leannahu aad iyo aad ayay u dhibaato badan yihiin raacidda ariga. geela waad aragtay qofka geela jirkaa inuu iska dayo meel iska jiiftaa, laakiin ariga sidaa ma aha, soo celcelin iyo inta ka keen iyo waxaasuu markaa u baahan yahay, ama waa iska sacdaa oo meel dheer ayuu markaa tagaa. marka xaaladaha noocaasaa loogu talagalay. nebi muuse calayhi salaam fiiri, ariga ayuu raacaa. ilaah subxaanahu watacaala diinkiisa xaq inuu yahay ayaa meeshana loogu tilmaamaa, liannahu hadhow ayaa ninka noocaana waxaa laga dhigi doonaa nebi, risaalo ayaa loo soo dhiibi doonaa. bani aadam aan u jeedna qaabkooda sida uu yahay ayaa loo soo diri doonaa, oo xataa markii la abuuraayay uu ilaahay malaa'igta la hadlay uu yidhi malaa'igay iyo warrama, waxaan rabaa inaan arlada khaliif ku abuuro, innii jaacilun fi lardi khaliifa, arlada ayaan khaliif ku samayn doonaa. jawaabtay bixiyeen malaa'igta mataqaanaa, waxay yidhaahdeen ilaahu ha nagu abuurin, atajcalu fiiha man yufsidu fiiha, ilaahu arlada ma waxaad yeelaysaa mid fasahaadinaaya oo wayasfiku dimaa, dhiig daadinaaya, wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lak. allow anagaa ku dahirayna, anagaa ku hufayna, ilaahayu anagaa kugu tasbiixsanayna, wixii tasbiix ku eg weligeen kugu caasin mayna, waad og tahay weligeen ma kugu caasinin ilaahayow. ilaahu bani aadam dhib loo waaye ha nagu abuurin, ilaahayow dhiiguu arlada ku daadinaa, ilaahayow waa isdilaayaan, ilaahayow fasahaad ay arlada ku samaynayaan. maca daalika rabbiyo ma waxaad abuuraysaa man yufsidu fiiha, mid fasahaadinaaya oo dhiigag daadinaaya. tasbiix iyo taqdiis iyo hufitaan iyo tahliil kulli anagaa ku hayna, ilaahayow ha nagu abuurin ayay dhaheen. dad noocaasoo kale ah ayaa la rabaa in muuse loo diro. maca daalika nebi muuse wuxuu yidhi labada xaalatii aan gutada waxba oo cadwaan ah ama dhibaato ah korkayga kuma ahaanin, wallaahu calaa maa naquulu wakiil. ilaahayna wax allaala waxaan ku hadlaynaa wakiil ayuu ka yahay subxaanahu watacaala. intaa ka gadaal falamaa qadaa muusa alajal, nebi muuse markuu ajashiisii dhammaystay, waktigii uu dhammaystay, ehelkiisii waa soo kaxaystoo waa soo baxay calayhi salaam. nebi muuse intaa hadda aan sii wadno weli risaalo looma dhiibin, weli lagama dhigin nebi.
weli waxyaaba risaala oo loo soo diray ma jirto. arijirkii ayuu ka soo baxay, ehelkiisii ayuu soo aaday. ilaah wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala inuu ajashii dhammaystay, laakiin ajashu miday tahay lama tilmaamin. falamaa qadaa muusa alajal, ajashaa oo dhammaystay ma tii 8 mase waa tii 10? waa labadooda mid ka mid ah. sida loo badan yahay 10 ayuu dhammaystay nebi muuse calayhi salaam. wa saara biahlihi, ehelkiisii ayuu la soo noqday, uu soo watay, ulna gacanta waa ku wataa calayhi salaam. mar allaala markuu soo baxay oo u soo socdo magaaladiisii ayaa waxaa habeennimo waa ahayd ayaa la yidhi. wadhor iyo mugdina markaa waa jiray. waxa kaloo la tilmaamaa dhaxan aad iyo aad u adagna inay markaa jirtay. intaa ka gadaal, intaa markay isugu sii darsameen, dhibaatooyinkaana isugu yimaadeen, ayaa la sheegaa nebi muuse inay ka dhumeen jihadii ay u socdeen asagii ehelkiisiiba. ayagoo sidaa u socda ayuu dhinac wuxuu ka arkay baa la yidhi iftiin markaa baxaaya. iftiinkaa markuu arkay ayuu ehelkiisii ku yidhi waxoogaa inta igu suga, waxaa laga yaabaa inaan baxo oo meesha aan aado oo aan soo fiiriyo iftiinka. waxaa laga yaabaa 2 mid ka mid ah oo faa'iida inaan ka soo helo. midda koowaad inaan meesha tago oo markaan taga aan soo ogaado dadka meesha jooga oo ay noo soo tilmaamaan oo hanuun aan ka helno oo markaa jidka ay nagu hanuuniyeen. hadday ka sii waayaana inaan ka soo qaadano qoray dab leh, intaa ka bacdina aan isku kululayno. labadaa xaalad mid ka mid ahba waa suuragal. nebi muuse wuxuu soo aaday ayaa la yidhi meeshii iftiinka ahaa. iftiinkii mar allaala markuu soo galay oo meeshii uu yimidba ilaahay ayaa u soo naadiyey subxaanahu wa tacaala. aayadaha qur-aanka gobol ka mida waxay leeyihiin markuu soo galayba waxaa la yidhi ambuurika man fi nnaari waman xawlaha, barake ayaa korkiisa ahaato ha la barakeeya midka iftiinkii naarta ku dhex jira iyo gaararkeedaba. meel mar kamida waxay leeyihiin aayadaha mar allaala markii nebi muuse meesha uu yimid ayaa la yidhi inii ana allah, war waxa kula hadlaayaba waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. fakhlacna calayka, dacaskaaga bixi, inaka bilwaadi almuqadasi tuwa, waxaad ku sugan tahay muuse oo dhex joogtaa waadi muqadas ah oo tuwa la yidhaahdo, oo tahiran oo nadiif ah ayaad dhex taagan tahay. inii ana rabbuka fakhlacna calayk, inaka bilwaadi almuqadasi tuwa. ilaah subxaanahu wa tacaala ayaaba la soo hadlayba. waa ku doortay ee fastamic limaa yuuxaa, war dhegaysa waxa lagu waxyoonaayo. anaa ku doortay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. war muusow maanta wixii ka dambeeya nin sharaf leh ayaa tahay. maanta wixii ka dambeeya risaalaan kugu aaminaa. maanta wixii ka dambeeya qoom ayaan kuu diraa oo nebi ilaahnimo sheegtay. waxaan kuu diraa dad shirki iyo gaalnimo ku dhex sugan, dad rabbigoodba aan aqaanin oo ilaah kayrkii adduunka ku caabuda. looma diro ilaa qof ilaahay jeclaaday maahane subxaanahu wa tacaala. yaa muusa ini istafaytuka cala annaas, dadka korkooda ayaan kaaga doortay birisaalaatii wa bikalaamii, risaalaadkayga iyo la hadalkaygaba ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. ee qaada waxaan ku siinaya wakun min ashaakiriin, kuwa shaakiriintaa ka mid noqo muusow. muuse meesha ayuu taagan yahay. nebi muuse calayhi salaam ilaahay ayaa la soo koobay, ilaahay ayaa la soo hadlay. war saacadda qiyaama yuusan kaa leexinin qof aan rumaynaynin. maalinta qiyaama hawadiisa raacoo fatardaa noqday. intaa ka gadaal ayuu ilaahay yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa, muusow gacantaada midigtaa maxaa ku jira? maxaad gacanta midigtaa ku wadataa ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. nebi muuse wuxuu yidhi hiya casaaya, waa ushaydii atawakka'u, waa ku taagsadaa. waa ku taagsadaa buu dhahay usha. arigaygana waxaan ugu daadsan jiray waxyaabaha iyo meelaha ay gaari waayaan. waliya fiihaa ma'aaribun uqraa, dana kalena waa ku qabsadaa. faa'iido fara badan ayay ii leedahay. ilaahay mar allaala markuu sidaa ula soo hadlay muuse, nebi muusena uu sidaa ku jawaabay calayhi salaam. uu yidhi gacanteeda midigtaa ul ayaa ku jirta, waa ku taagsadaa. arigaygaan ugu daaqsadaa. ma'aarib iyo dana kale waa ku qabsadaa. ilaah subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi alqihaa yaa muusa, muusow tuurba ushaan aad ammaanayso aan aragnee tuur ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. alqihaa, ridba muusow waa riday. fa idaa hiya xayatun tascaa, waxay noqotay abeeso aad iyo aad u weyn oo dhaqdhaqaaqaysa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. qisada inaan iska sii wadna meehe waa inaan ogaanaa cibrooyinka ku jira. nebi muuse aad iyo aad buu usha u ammaanay. manaafacaad fara badan ayuu ku tilmaamay. danteena ma naqaano. waxaa la tusaa nebi muuse calayhi salaam shay nafci kugu jira inay daar iyo dhibaato kuu keeni karaan.
oo rabbi hadduu doono subxaana wa tacaala arrintaa lagugu sallidi karo. ilaahay subxaana wa tacaala usha tuur ayuu yidhi. nebi muuse mar allaala markuu usha tuuray sida aayad kale ay tilmaantay ay noqotay thucbaan iyo mataqaanaa abeeso ama mas weyn oo kale. ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala mar allaala markuu arkay falamaa ra'aaha tahtazu, markay arkay inay dhaqdhaqaaqaysa kaannahaa jaan, aad u malaysa jaan oo kale, wallaa mudbiran walam yucaqib. nebi muuse waa jeestay, waa orday buu dhaha ila subxaana wa tacaala, gadaalna uma soo fiirin ushii. ilan waa cabsaday, waa shay maskaxdiisa ka weyn, waa wax aan loo adkaysan karin. ul aad gacanta ku wadatay oo la tuuray oo abeeso soconaysa noqotay, shay laga cabsanayo waaye. nebi muuse waa orday calayhi salaam sida ilaahay tilmaamay. nebi muuse mar allaala markii xaaladiisu ay meeshaa maraysa, ilaahay wuxuu yidhi aqbil walaa taqaf, muusew soo qaabil oo kaalay, ha cabsanin, adigu aamin iyo waxaad ku dhex sugan tahay meel aamin aad ku dhex sugan tahay. agteeda kama cabsadaan dadka mursaliinta. aayad kale ayaa tilmaantay, markuu soo noqday ayuu ilaahay yidhi khudhaa walaa taqaf, muusew qaba ushahana ka cabsanin ayuu dhahay subxaana wa tacaala. nebi muusew ushaan qabo, qaad buu dhahay ila subxaana wa tacaala, ha ka cabsanin, sanuciiduha, waxaan ku soo celin doonaa siirataha aluulaa, tilmaanteedii hore ayaan ku soo celin doonaa. usha waa qabtay nebi muuse, markaasaa waxay ku soo noqotay tilmaanteedii iyo siiradii marka hore ay lahayd iyo ulnimadeedii. intaa ka gadaal ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala, haddana wadmum, waxaad u duntaa janaaxaaga iyo dhinacaaga gacantaada geli jeebkaaga. jeebka waxaa loola jeedaa dhanka feeraha iyo gacanta gainta meesha u dhaxaysa geli, ee jeebka caadiga wax lagu shubtaa ma aha. meeshaa geli buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala, wuu geliyey, way soo baxday, waxay noqotay faidaa hiya baydaa, mid aad u aftiimaysa. dadka naadiriintae fiirinaya ayay aad iyo aad markaa ugu aftiintay. intaa ka gadaal ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala, labadan aay waa burhaanayn iyo laba xujo. fircoon ayaan ugu talagalnay, u geey, maanta wixii ka dambeeya rasuul ayaa tahay, adeegaa tahay, waa ku adeejiyey. intee loo diraa haddana ma u jeedaa? ninkii dilka toogashada ku xukumay oo u xukunnaa ee markii hore uu ka soo orday, aa la rabaa inuu xafiiska u galo, asagoo kursiga ku fadhiyo hortiisa uu istaago, uu yidhaahdo waxaan aad waddo waa been, waxaan aad ku socoto waa shirki iyo gaalnimo, adigu ilaah ma tihid fircoonow. ilaaha weyn ee khaaliqa ee wax abuuray ayaa ilaah ah, ee dadka arsuqa, ee awoodda gacantii ugu jirto, samaawaadkii arlada asaga maamula, dhibka iyo nafciga asaga bixiya. allaha noocaasaa ilaah ah. ninka ku soo buriyey oo dilka toogashada aad ugu xukuman tahay, u tag buu dhahay ila subxaana wa tacaala. mar allaala markii xaalada uu sameeyey, tanna waa aayad kale ilaa uu dhahay subxaana wa tacaala, idhab, aad buu dhahay oo bax oo waxaad u tagtaa fircoon, inahu tagaa, fircoon waa xadgudbay, fircoon waa qooqay, daacada ilaahay ayuu diiday subxaana wa tacaala, ma ogola diinka ilaahay, aad ayuu dhahay ila subxaana wa tacaala. muusew bax u tag oo fircoon u tag. fircoon wuxuu noqday mid taaqa ah oo xadgudbay oo rabbi aan ogolayn oo aan rabin inuu daacada ilaah raaco subxaana wa tacaala. nebi muuse mar allaala marka xaaladiisu ay meeshaa marayso, dhibaatadaa faraha badanna hortiisa ay soo hor istaagtay iyo arrintaa cajaa'ibta badan, ninka uu ka soo cararay la leeyahay xafiiska ugu gal ee la soo hadal, ayuu ilaahay baryey subxaana wa tacaala. muxuu dhahay rabbi ishrax lii sadrii wayassir lii amrii, ilaahayow laabtayda waasici. ilan diinkan mar allaala markaad rabto inaad dadka gaarsiisa, waa in laabtaadu ay sharax ahaataa mid waasicsan. diinta alla aad ku dhaqantaa, adiga xaqa ilaahay aad raacdaa. ummadda waxa aad gaarsiinaysa waxay maqli og yihiin oo ay jecel yihiin oo qalbigooda uu gelayo marka aad adiga ku dhaqantood ku camal fasho sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin. yaa ka fiican, yaa ka qiimo badan, yaa ka sharaf badan, yaa ka hadal fiican buu dhahay ilaahay, miman dacaa ila allah, nin dadka diinta alla ugu wacaaya oo dhahaya kaalaya ilaahay diinkiisa waa kanaaye, war kaalaya xaqii rabbina amray waa kanaaye, war kaalaya wuxuu rabbina amray waa kanaa, war kaalaya wixii ilaahay noocna amray aan fuline. ninka sidaa dhahaya yaa ka qowl fiican, bacdamaa maanta ay noqotay yaa ka fiican ninka dadka qabiilka ugu wacaayo, yaa ka qowl fiican qofka maanta dadka adduunka ugu wacaayo, yaa ka qowl fiican ninka maanta dadka shayaatiinnimadii edabdarada iyo fisqigii macaasida ugu wacaayo. saasay markaa isku bedeshay, camalka saalixa samaynteedana sharta samaynaya isku bedeshay. waqaala
qaala inanii min almuslimiin afka ka dhahaaya waxay isu bedeshay inuu gaalnimo iyo waxyaabo kale markaa sheegto. waa xaalad aad iyo aad naxdin u leh, murugyo leh. ilaah subxaanahu wa tacaala hadduusan naga soo gaarinna khatar lagu jiro cadaabkiisa inuu ilaahay soo degdego subxaanahu wa tacaala. haddaba xaalku markuu meesha u maraayey, nebi muuse baryo ayuu gacmaha la taagtay, rabbi shrax lii sadrii, ilaahayow laabtayda ii waasici, amarkaan aad ii saartay oo aad ii dirtayna ii fududay, wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii, cuqdada carabkayga ku sugan ilaahayow iga fur, yafqahuu qawlii, hadalkayga ha fahmaan, wajcal lii wasiiran min ahlii, wasiir ahelkaygaa ii sameey, haaruuna akhii, haaruun oo walaalkay ah cadudkayga ku xooji ayuu yidhi. nebi muuse calayhi salaam walaalkiis ayuu u tuugay, walaalkiis ayuu u baryay in risaalada lala qaybgeliyo. waa haaruun ayuu ilaahay u tuugay subxaanahu wa tacaala in garabkiisa laga dhigo. ma ahan marka uu tuugayo oo risaalada madaxtinimada garab lagula siiyo walaalkii inay wax isla dhacaan, inay wax isla xoogaan, inay dadka siyaasii khiyaano wax ku wadaan. laakiin hadalkuu sii watay maxaa ka mid ahaa, kay nusabbixaka kaiira, waxaan rabnaa inaan wax badan ku xusno, inaan kugu tasbiixsano, wanadkuraka kaiira, wax badan inaan ku xasuusano ani iyo walaalkey. ilaahayow aan dhahno, diinta kor aan u qaadno, saasaan rabnaa maahane xoolo kale iyo waxyaabo kale hele nagama aha, dadka xafiiskii qalinka ku dhaca nagama aha. waxyaabaha aan u tuugayo walaalkay jeceyl qabyaalad ah ma aha, ma ahan walaalkay wasiir iyo madax sare inuu ii noqdo, laakiin inaan ilaahayow adi ku barino, diintaada aan qabsano oo aan wax badan kugu tasbiixsanaan rabaa. sidaa ayuu dhahay nebi muuse calayhi salaam. ilaah muxuu ugu soo jawaabay, wuxuu ilaahay yidhi waan ku siinay wax allaala waxaadna su'aalatay muusow, waxaan ku siinay wax allaala waxaadna su'aalatay, waayo horay ayaan kuu galladaysanay, adoonna baryin oo aadan waxna weydiisanin ayaan sanduuq kugu ridnay, oon bannaanka kuu soo bixinay, oon fircoon kaa soo badbaadinay, oo madyan aan ku geynay, oo aad ka soo noqotay. haddana qadar ayaad ku timid, waxaad meesha ku taagan tahay qadar alla subxaanahu wa tacaala. say ku dhici kartaa marka in adigoo waxna weydiiye aan wax kuu diidno, anagoo adiga waxna weydiisan ayaan wax ku siinay ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. aayad kale ilaah wuxuu ku tilmaamayaa, ilaahayow buu dhahay laabtayda ama dhinacayga ku adkay, ama lafxoogayga walaalkay haaruun ah, waayo huwa afsaxu minii lisaanan, asagaa iga carab faseexa badan, waayo aniga xoogaa waxaan ka cabsanaa inay ibeeniyaan. waxaa kaloo jirta inaan dembi ka galay, waxaan dushooda ku leeyahay walahum calaya danban fa akhaaf, waxaan ka cabsanaa inay idilaan. sidaana waa yidhi nebi muuse calayhi salaam. ilaah wuxuu ugu soo jawaabay, ha cabsanina ee baxa, anaa micigiina ah, anaa idinla jira, aniga waa idin arkaa waana idin maqlaa. u taga fircoon buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, faquulaa lahu qawlan layinan, waxaad kula hadashaan qowl jilcan oo jilicsan oo sahlan, lacallahu yatadakkar, waxaa laga yaabaa inuu waana qaato ama uu cabsado ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. meesha cibro cajiib badan ayaa ku jirta. qofka dacwada la gaarsiinaya in loo jilicsanaado, qofka diinka loo sheegaya inaan lagu adkaynin, qofka diinka loo sheegaya inaan lagu qaylinin, si jilicsan oo sahlan oo layin ah in diinka markaa loogu sheego. waayo ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, udcu ilaa sabiili rabbik, dadka ugu wac jidka ilaahay, bilxikma waalmawcidati alxasana, xikmo iyo mawcida xasana adoo isticmaalaya. xikmada waxaa loola jeedaa adigoo basiiro haysta, adoo cilmiga yaqaana, waxaad u sheegaysa adoo fahamsan. dadka noocaas ah ugu sheeg diinka, mawcido xasana ah dadka gaarsii, oo si jilicsan oo sahlan ugu sheeg. taas macnaheeda ma aha qofka tolkaaga ah xaqa ha u sheegin ee ka aamus loolama jeedo. qofka xumaanta ku dhex jira ka aamus lagama wado. xikmo mawcidaa dadka wax loogu sheegaa. waad u jeedaa fircoon ayuu ilaah yidhi, u taga oo waxaad kula hadashaan qowl layin ah, lacallahu yatadakkar aw yakhsha. waxaa laga yaabaa inuu qaana qaato, waxaa laga yaabaa inuu cabsado, waxaa laga yaabaa inuu soo rujuuco. sidaa ayaa dhici karta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay ma oga miyaa, ilaahay caalim ku ahan miyaa inuu fircoon xaaladiisu ay sidaa noqonayso ama arrintiisu ay sidaa ku khaatimeynayso? ilaahay waa yaqaana subxaanahu wa tacaala.
laakiin nebi muuse risaalada loo fududaynaa waxaa la rabaa si sahlan inuu u guto. haddii la yidhahdo muusow bax aad oo fircoon u tag kule nin wax maqlaaya ma ahe, bax u tag kule nin caqli qaadanaya ma ahe, bax u tag kule nin naar loogu talagalay waaye. waxaa dhici karta si fudud ama si qalbigiisa sharaxsan inuusan ku imaanin, laakiin waxaa la rabaa si fudud oo sahlan oo jilcan oo asaga khiyaar uu u leeyahay in diinta loo gaarsiiyo, dacwada loo gaarsiiyo, rabbi diintiisa la gaarsiiyo oo lagu xiro. sida ayuu ilaahay rabaa subxaanahu wa tacaala. fircoon bax u tag oo xaqa u sheeg, waxa uu ku jira ha ka baxo ha ka gaabsado. war waxa meesha uu soo aadayo waa qiyaamo, meesha uu joogaana waa adduun. ilaahnimada uu sheeganayo ilaahnimo dhab ah ma aha, mana jirto mana jiri doontee. muusow bax, muusow risaalada u gaarsii oo ka dacwo gudo ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. nebi muuse in allaala intuu ilaahay weydiistay ayaa la siiye, ka gadaal waa soo dhaqaaqay. wuxuu soo aaday dhanka fircoon. wuxuu rabaa dacwada inuu ka guto, wuxuu rabaa inuu xaqa u sheego, wuxuu rabaa inuu daacada ilaahay ku xiro, wuxuu rabaa inuu ka bixiyo mugdiga uu ku jiro una bixiyo iftiinka, wuxuu rabaa inuu ka bixiyo ilaahnimada uu sheegtay lana gaarsiiyo heer addoonnimada uu asagu yahay. waxaa la rabaa in laga bixiyo shirkiga iyo waxyaabaha uu ku jiro. waxaa la rabaa in loo bixiyo tawxiidka si uu adduun iyo aakhiro u liibaano asaga laf ahaantiisa, haddii xaqa iyo risaalada markaa uu fuliyo ama markaa uu qaato. haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay nebi muuse waa soo baxay. waxa uu soo galay xafiiskii fircoon uu ku jiray. waxa uu hor taagan yahay fircoon, wuxuu rabaa inuu diinta gaarsiiyo. haddii rabbi yidhaahdo subxaanahu wa tacaala oo fursada noocan oo kale aan helno ayaan dhammaystiran doonaa haddii rabbi yidhaahdo. laakiin hanoo joogto qisada nebi muuse oo soo baxay oo ku jira xafiiskii fircoon, iyo fircoon oo meesha fadhiya oo la rabo in dacwada la gaarsiiyo. haddii ilaah yidhaahda galaalaha dambe ama wakhtiyaalka dambe ayaan ka dhammaystiri doonaa. wa aquulu qawlii hada waastaqfir allahu lii walakum wabillahi tawfiiq. allahu subxaanahu wa tacaala aclam. kaasi waxaa fadiilad sheekh xasan ibraahim ciise waxaa idin soo diyaariyey alqalam stereo oo ku yaala suuqa bakaaraha gaaraha cabdirashideeye.